kulanti wacan oo wanaagsan dhageyste ku soo dhawow sahanka nolosha waxaan ku haynaa 30 daqiiqo oo madadaalo aad u wanaagsan waxaan idiin haynaa riwaayadeennii sahanka nolosha oo hadda soo geli doonta kadibna waxaan waraysi kooban oo muhiim ah la yeelanay xuseen aadan xasan oo ah qareen oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho walaalkiis ka yar ayaa ku jira ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya waxaana ka hadli doonaa dhammaan hindisaha ciidamada ilaalada xeebaha waa waraysi aad u xiiso leh hadda dhegayso riwaayadda oo xasuuso inaad fariin qoraal gaaban noo soo dirtid taasi oo ku aadan su'aasha toddobaadka la soco xalqada shanaad ee sahanka nolosha waa tahay dhagaystee ku soo dhawow xalqad kale oo xiise leh oo ku saabsan nolosha jilayaasheenna xiisaha leh ee riwaayaddeenna sahanka nolosha xalqadii la soo dhaafay xasan wuxuu xanaaq dartii shaqada uga ceedhiyey dhowr qof oo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha su'aal ay weyddiiyeen darteed mooge waxa uu sheegtay awood si uu dirir uga aarsado dhibkii kalluumaysatada haysatayna weli xal lagama gaarin sidee waxaas oo xiisad ah oo taagan ay ku dhammaan doonaan inta lagu guda jiro xalqadan kala soco halkan isla hadda si aad u ogaatid kuwaas iyo kuwo kale oo badan inta lagu guda jiro xalqadan sahanka nolosha joofle waa tana quraacdaadii cunto kalena miiska ayay kuu saaran tahay haddaad hadhow gaajo dareentidna cun mahadsanid xaaskaygii aamina joofle looma baahna inaad maantoo dhan ku celcelisid xaaskaygii waxaan rajaynayaa ku celcelintaasi inay igu caawiso inaan xusuustayda dib u helo waan ku fahmayaa joofle ilaahay waxaan ka baryayaa in ducooyinkaygii uu aqbalo waan kaa sii tegayaa haddii aad dareentid inuu qof halkan kuugu yimaado kadibna naftaada aad u baqdid joofle qaylo afka furo si darisku ay kuu caawiyaan oo maxaan halis u gelayaa sabab la'aan waxay iga tahay taxaddar uun ninkaygii aamina ma halis baad ku jirtaa aniga laftaydu ma halis baan ku jiraa ma wax la xidhiiraa sababtaan xasuusta u waayeyba maya fadlan waxaas aan ku dhahay iska ilow joofle si qalada ayaan u hadlay aamina waxaad ii sheegtay inaan ahaa zawj wanaagsan inta aan xasuusta iga lumin soo sax ma ahan dabcan haa ma jirin wax dembi ah oo aan faraha kula jiray soo maaha jooflii dembi ah waa kaaf iyo kala dheeri waxaad ahayd qof aanan cidna dulmin xataa weligii duqsi aanan waxba u geysan marka hadda waan sii baxayaa joofle oo ganacsiga ayaan aadayaa ee qayr ayaan kaaga tegey aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay runtii yaanyadan waa freesh talow qofkaasi ma colaad baa colaad war colaadow qofkaas soo colaad maah subax wanaagsan hibo maxaad saacaddan la wareegaysaa jidadka soo ma ahayn inaad xafiiska joogtid saacaddan mise waxaad leedahay xasan ayaa kaa hoggaan fiican oo sidaan jecelnahay ayuu noo yeelayaa anigu kumaba jiraba ciidanka ilaalada xeebaha hibo maxaad ka waddaa maxaad tidhi sidaasi aan kuu sheegay ayaa runtii aan ka wadaa wax kaloo jira ma jiro xasan ayaa shaqadii iga ceyriyey kuma fahmin colaad maxaad samaysay muxuu kugu cayriyey waxba waxaan ciidanka ilaalada xeebaha ku xantay xirfad la'aanta haysata isaga arrinkaas ayaa dhacay oo kadibna wuu ku cayriyey miya oo waxaasi soo kabadbadin maaha aniga keligay weliba ma aha 10 qof annagoo ayaa shaqadii nagala ceyriyey isaga ayaana subiyey maxaa oo ma wuxuu shaqada ka cayriyey 10 qof oon anigu soo tababaray maya ka oggolaan maayo inuu ciidanka ilaalada xeebaha oo u maamulo sidii dabakaayo uu isaga leeyahay waan ka diido middaas wax aad ka qaban kartid ma jirto hibo isaga ayaa hadda meesha madax ka ah aniga madax iima aha maya kama oggolaan doono inuu ku ciyaaro mashruuca ciidanka ilaalada xeebaha mashruucan wuxuu ka weyn yahay qabka iyo kibirkiisa hadhow baan is arkaynaa colaad nabaday aamina ma adigiibaa oo durbo suuqa ma ka soo laabatay nimco ma adiga qofkaasi iskoolka saacan lagama soo bixin
hadda un baan hindhaha isku yara qabtay oon saaxday. waryaa yaa weeye qofka albaabka qaraacaya. malaha waa un dabeesha. sug bal aan soo fiiriye. qofna ma joogo meeshaan. allah rabbiyow, yaa tahay adiga? waryaah joofle isdeji waryaah, waa saaxiibka. anigu saaxiibka ayaan ahay. saaxiibadu uma soo dhuuntaan guryaha saaxiibadooda kale iyagoona cidda ay yihiin sheegin. waryaa kaalay meelna ma aadaysi, joog joofle. oon maxaan kugu sameeyey? yaa wey adiga, maxaan kaa haleeyey? waxaas miiska saaran masabaayad baa macaan miro waaye. waxaan u malaynayaa inaad noloshan ku faraxsan tahay. war yaa wey adiga? saaxiib ayaan nahay aniga adiga. saaxiibadu ma cunaan cuntada saaxiibadooda iyagoona guriga lagu casuumin. joofle waad xanaaq dhowdahay. jooflihii hore ayaad ku fiicneed, ninkii jaadka jeclaa ee ahlumirqaanka ahaa. magacaygu waa madaxa burcadbadeedda. sidaas ma ku xasuusan kartaa magacayga? oo ma inaan ku xasuusto ayay ahayd? runtii xusuustii way kaa dhuntay sow ma ahaan? maskiin, waxaan u imid inaan middaas ogaado oon kuu sheego in sidaas aad sii ahaatid adiga. annaga hawlaheenna ha naga qasin nin yahow. annaga yaa la dhahaa? usfur yaa aamus, qaylo dheeridaa. ma jeclaysan qofka aad tahay. aan kuu sheego, mar haddii xusuustaada ay soo laabato waxaan ku qasbanahay inaan carabka kaa jaro, ambaba ka si fiican wadnaha inaan ku jaro. marka wax kasta sidaasa sii ahaadaa nin yahow. warkaygu ma ku dhacay oo ma fahamtay? joofle naftaada ha kalifin, way fududahay xaggayga. inaan ku dilo waxba iguma qaadanayso. keliya waxaa lagaa rabaa jawaab ah haa ama maya. haa, waan ku fahmay. hagaag, markaan cabbaar joogo waan kugu soo noqnoqon doonaa si aan xaaladdaada u ogaado. waxaan rajaynayaa marka dambe aan soo laaban doono inaan ugu soo laabto maraq meeshan yaalla oo aan ku dhuuqo sabaayaddan. haddii aad qof u sheegtid inaan halkan imaaday, xitaa xaaskaaga allaha ka dhige, waan kuu soo laaban doonaa oo carabka ayaan kaa goyn doonaa. nabaday joofle. hibo, goobtaan adigu kama shaqaysta hadda. loomana baahna in xafiiskayga aad u soo geshid sida hadba aad jeceshahay. waan ogahay guddoomiye, laakiin waan ka xumahay. maxaad tidhi? maxaad xasan ugu oggolaanaysaa inuu mashruuca ciidanka ilaalada xeebaha oo u maamulo sidii sandaqad yaroo xeebta ku taalla oo isagu leeyahay? uma bogin sidan qallafsan ee aad iila hadlaysid hibo. waxaan si xoog leh u maalgashannay ciidanka ilaalada xeebaha haddii ay noqoto tababarkooda iyo ilaa iyo awood-dhisitaankooda. marka waxaas oo dhan ma halbacaad lagu lisay ayaan ka dhigaynaa? yaah, ma waxaan rabnaa inaan niyad jab ku ridno oo ay awood la'aan noqdaan ciidankeenna ilaalada xeebaha si ay mar labaad u soo noqdaan burcadbadeeddii? maxaad ka hadlaysaa hibo? oo warba kama haysid miyaa xasan inuu cayriyey 10 nin oo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha? yaah, muxuu sameeyey ayaad tidhi? maya arrintaasi sinaba suurtagal uma ah. ma dhici karto. u yeer haddii aad rabtid arrintan inaad ogaatid ood ka salgaartid. waad ku mahadsantahay in arrintan aad ila soo socodsiisay hiboy. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. waa inaan isku dabaridnaa barnaamijka ciidanka ilaalada xeebaha. waan arkaa guddoomiye oo farahaaga ayay ka sii baxaysaa. nabaday guddoomiye. waan ku fahmay dirirow. cabashada kalluumaysatadu ahmiyad gaar ah oo weyn ayay ii leedahay aniga. muddo ayaan sugaynay in wax laga qabto. kalluumaysatadii quus ayay taagan yihiin guddoomiye. hawsha aniga ayaa isku aadinaya dirirow. arrintan doontaa sida sharcidarrada uga kalluumaysanaysa biyaheenna waa la xallinayaa. hadda waxaan wacayaa ciidanka ilaalada xeebaha si ay u soo sameeyaan roondo si doonta sida sharcidarrada uga kalluumaysanaysa daaqsan aysan u soo dhaafin hadda meesha ay joogto. waxaan rajaynayey in intaas ka badan wax laga qaban doono guddoomiye. haddii kalluumaysatadu waayaan irsiqii maalinlaha ahaa ay la soo bixi jireen, waxay ku laaban karaan burcadbadeednimo. dirir, adigu miyaad ka mid tahay kuwa ku laabanaya burcadbadeednimada? maya, dabcan maya. aniga 10 ayaan ka bartay wixii igu soo dhacay. waxaan ku waayey qoyskaygii iyo carruurtaydii oo nin khayrkay ah ayaa ii korinaya carruurtayda. sababtuna waxay ahayd burcadbadeednimadii aan aaday.
aniga 10 ayaan ka bartay weliba waxyeelo badan ayaa iga soo gaartay taasina shaki uusan kaa gelin laakiin guddoomiye anigu uma hadli karo kalluumaysatada kale ma aqaano waxay quus darteed ay u samayn karaan waan ku fahmay waxaan xoogga saari doonaa sidii xal loogu heli lahaa arrintaas si quutul maalmeedka kalluumaysatada loo soo celiyo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan mahadsanid guddoomiye guddoomiye adigaa ii yaray miya haa soo gal xasan dirir adigu waad iska bixi kartaa aniga ayaa warbixin ku soo siinaya haddii aad ledin waan kaa warsugaynaa guddoomiye waa mahadsan tahay xasan ma runbaa inaad cayrisay 10 qof oo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha haa guddoomiye waxaan ku cayriyey amar diidda ay sameeyeen xasan hadda waxa aad tahay maamulaha guud marka ay cadiifadaadu sarrayso oo aad xanaaqsan tahay inaad kala duldhacdid ciidanka ilaalada xeebaha maaha taa looma baahna laakiin ixtiraam darro ayay igula kaceen guddoomiye sababtu waxaa weeye waxba ka garan maysid sidii shaqadan loo qaban lahaa sidii la rabay uma hoggaaminaysid ciidanka adiga seeflabood ayaa tahay intaas ayayna kaa arkeen runtii xaqiiqadu waxaa weeye wixii aan anigu arki waayey ayay arkeen nimankaas maxaad ka waddaa guddoomiye waxaa la gaaray xilligii aan wax walba beddeli lahaa runtii ma oggolaan karo in ciidanka ilaalada xeebaha ee sida xoogga leh loo maalgeliyey si sahlan lagu burburiyo ama ay shaqada uga tagaan weliba bilaa sabab la'aan hadda waxaan ku siinayaa fursad aad ku kobciso aqoontaada oo aad wax uga barato hibo waa haddii ay hibo rabto in ay soo laabato oo ay noqoto maamulaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha maxaa maya guddoomiye arrintan kama wada hadlayna xasanow wax badan oo bulshada reer daaqsan dan u ah ayaa khatar ku jira hadda waxaan u baahannahay barnaamij xasiloon oo ay yeeshaan ciidamada ilaalada xeebaha si ay u gutaan waajibaadkooda marka maxaad ka leedahay arrintan hibo anigu waan ogahay oo qalad ayaan sameeyey hadda si fiican baan u arkaa qaladkii aan galay oo dhan adigoo mahadsan ma iga aqbalaysaa in aad noqotid maamulaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha waxaan u malaynayey inaanan weligay ii soo bandhigi doonin dabcan waan kaa aqbalay shaqada runtii hibo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay hal shuruud ayaa ku xidhan guddoomiye inaan dib ugu soo laabto shaqada waa in 10kii qof ee ciidanka ilaalada ee xasan uu shaqada ka cayriyey dib loo soo celiyaa waa runtaa si kale oo la yeeli karaaba ma jirto hibo marka ku dhaqaaqa hawshaas wax ka qaba degdega ayay rabtaa aad iyo aad guddoomiye way fiican tahay inaan dib ugu soo laabto halkan laakiin sidaas degdega hawluhu ma aha hibo haddadan la joogo waxaa miiska kuu saaran 2 shaqo oo la doonaya degdeg in wax looga qabto midda koowaad waa kuwa daroogada ka ganacsada midda labaadna waa doonta la sheegay in ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayso biyaheenna laakiin werwer kama qabo oo waan ogahay inaad guul u horseedi doontid ciidankeenna ilaalada xeebaha sidii horeba aad u samayn jirtay waxa aan soo maqlay ma runbaa xaawakiin in mooge uu hanad ku dhahay kuma laaban kartid xagga aabbaha oo lama noolaan kartid dirir waa ku baryayaa warkaas jooji waxa aan ka hadlayno waa wiilkaygii marka ma waxaad rabtaa inaan joojiyo hadalka hanad uma baahna inuu rukhsad ka qaato mooge oo aniga ila noolaado arrintan dagaal ha u beddelin hanad waa wiilkayga aniga ayaa dhalay hanad mooge xitaa waa wiilkiisa mooge ayaa soo koriyey inta aad maqnayd oo dhan waaw marka ma waxaad rabtaa inaad mar kasta ku soo celcelisid qaladaadkii horay u dhacay waa yahay ku soco oo dadka oo dhan waxaad xasuusisaa inaan burcadbadeednimo aaday oo aan kaa tegey adigoo 2 mantaana ah uurkooda sida sidaas kama wadin marka maxaad ka wadday carruurtu waa 13 sano jir oo weligay wax wanaagsan ma maqli doono oo horay u dhacay oo aan ka ahayn inaan burcadbadeednimo aaday miyaanan u qalmin in fursad labaad la i siiyo inta aan noolahay waad u qalantaa dirir qof ku dhahay uma qalantid ma jiro hagaag marka orod oo alaabta hanad u soo qaad aniga ayuu guriga ii raacayaa sidaas ma yeeli karo oo mooge ayaa diiday muxuu mooga ka og yahay sida wiil loo koriyo waxa uu yahay ma jirto oo aan ka ahayn inuu yahay dembiile kaadir ah warkaas ka laabo kama laabanayo mooge waa dembiile adiga iyo aniguba waan ognahay xaawakii hadalkaas ka laabo haddii kale ballan waxaan kaga qaadayaa inaadan mar dambe kuu oggolaan doonin inaad ka soo agdhowaatid hanad ha ka yaabin inaan raalligelin ka bixiyo in mooge aan ugu yeedho dembiile waa aabbaha dembiilayaasha oo dhan waxaad rabtid samay xaawakiin taasina waxay ahayd xalqad cajiibkeeda leh xaawakiin iyo dirir madaxa ayay isdareen talow ma heshiin doonaan
hibo waxay dib u heshay shaqadeedii madaxa burcadbadeeduna waxa uu hanjabay joofle intii lagu guda jiray xalqadan maxaa dhici doona toddobaadkaa soo socda kala soco halkan si aad u ogaatid waxaan sidoo kale aragnay guddoomiyaha oo dirir u sheegaya in ciidanka ilaalada xeebuhu ay ilaalin doonaan qutuldaruuriga kalluumaysatada guddoomiyuhu waxa uu dirir ka ballan qaaday in ciidanka ilaalada xeebuhu ay roondayn doonaan biyaha daaqsan ma u malaynaysaa in saamaynta roonda joogta oo lagu sameeyo biyaha daaqsan ay ka hortegi doonto dembiyada ka dhaca xeebaha fadlan nala wadaag fikirkaaga adigoo fariin qoraal gaaban si bilaasha noogu soo diraya nambarka 354 ku bilow magacaaga iyo meesha aad joogtid wayna farxad gelin doontaa inaan fikirkaaga aan ogaanno waadna ku mahadsan tahay dhegaysiga xalqadan ballanteennu waa toddobaadka soo socda isla xilligan si aad ula socotid nolosha jilayaasheenna halkan sahanka nolosha waxaan rajaynaynaa inaad ka heshay xalqadda oo aad xasuusatay inaad fariin qoraal gaaban ku soo dirtay su'aasha toddobaadka oo ahayd guddoomiyuhu wuxuu dirir ka ballan qaaday in ciidanka ilaalada xeebuhu ay roondayn doonaan biyaha daaqsan ma u malaynaysaa in samaynta roondo joogto ah lagu sameeyo biyaha daaqsan ay ka hortagi doonto dembiyada ka dhaca xeebaha fariin qoraal gaaban noogu soo dir nambarka 354 eber waa hagaag aan hadda u gudagalno waraysiga ah ku raaxayso mid iyo laba haddaan idhaahdo waxaan ilaaladu soo kordhisay in ay ka fogeeyaan burcadii kalluumaysiga ahayd ee dhibaatada ku haysay inay ka fogeeyaan xeebaha Soomaaliya mar hore waxay dhici jirtay in xeebaha Soomaaliya u soo dhawaadaan la arko markab iska taagan meel heblo oo la leeyahay wuxuu haya lama yaqaan cid la hadli karta male cid oo raadar haysato la hadlaysa ama raadiga kula hadlaysa inaan jirin sadarada iska fadhiyo bil ama bilooyin iska fadhiyo ilaalada xeebaha maadaama hadda wiigii hore la maxkamadeeyay 30 iyo dhowr qof oo isugu jira 3 wadan lagana soo qabtay xeebaha Hobyo meel ku dhow laga soo qabtay oo ilaaladuna soo qabatay waa guulaha ay gaareen ilaalada xeebaha guulahaas aad sheegtay in la gaaray faa'iidada ay u tahay bulshada maxaa kamid ah faa'iidada ay u tahay waxa weeyaan waa laba dhinac mid waxa weeyaan kalluunkii ay ka guran jireen xeebaha soke oo ay kalluumaysiga naga tagayay ayaa nabad galay oo ummadda waxa markaas ay soo galay kalluun aad u tiro badan oo intii hore ka fiican oo ka tayo fiican ayaa soo galay waa marka labaad waxa weeyaan in badiina ay nabad gashay maadaama ay jarifiye ahaayeen marka hore ay ugxaantii iyo waxaan ay jarifayeen taana in nabad galto waa marka labaad marka saddexaadna waxa weeyaan in maraakiibtaas qaar kamid ah la aqoonsado calamada ay ku socdaan deedna dawladda Soomaaliya ay si diblomaasiya oo la hadasho markaas ay tooyay dawladii cabasho loo qoro qaramada midoobay unsoon la gaarsiiyo deedna markabkaas ay tooyay si loo maxkamadeeyo maxay kula tahay caqabadaha ugu badan ay wajahayaan ciidanka ilaalada xeebaha ama qorshayaasha ka socda badda ee la rabo in wax looga qabto dambiyada ka dhaca xeebaha caqabadaha haysta waxa weeyaan inaynan haysan agab fiican inaynan haysan maraakiib inaynan haysan doomo waaweyn oo dheereeya inaynan haysan inaan ku hortegi karin falalkaas dambiyada dhacay sababta waxa weeye mararka qaarkood waxaan yidhi maraakiibtaas waaweyn waxay sameeyaan inay muujado hira ku kiciyaan doontii yareed marka doontii ay qalibanto mararka qaarkood waxaa dhici karta in doontii la xabadeeyaba ayagoon ku talagelin ama ayagoo wataba in qoryaha wataan qoryaha waaweyn loo soo gaarsiino doontii ay doolashantay ka degto waxyaabahaas oo dhan baa meesha ka dhacaya marka waxaa la rabaa marka inay haystaan doomo dheereeya oo markabka docda marka soo fuuli kara ama meel kale si u dhawaan kara inay helaan iyo inay helaan diyaarado oo markaas ay markabka dushiisa in wixii ku sido iyo wuxuu wato kor laga arki karo bulshada sidee ay uga gacan siin kartaa ciidankeena ilaalada xeebaha ee ka shaqeynaya amniga xeebaha ummadanada waxay gacansiintooda waxa weeyaan waa gacansiin bariga inta bariga ay joogaan ay ciidankaas ay tooye iyo waalidiintoodii inay dhiirigeliyaan ay u sameeyaan ciidanka kaliya iyo in ay ummadda Soomaaliyeed ay canshuurtii bixiyaan si ciidankii mushaarkoodii loo helo waxa ugu weyn waxay saaranta waa dawladda waxay dawladdu mujtamac hadii laga qaado canshuurtii oo canshuurtaas loogu gadin ciidanka qalab loogu gadin marka taas inay marka dib u dhis u sameeyso ciidanka oo salna loo sameeyo loo bilaabo laakiin waxa aad muhiim u ah in ciidan wadan walba wuxuu ku dhistaa oo ku nool waxa weeyaan waa amniga iyo amaanka ciidanka ama ciidanka xeebaha leh
ama ciidanka ammaanka gudaha ka shaqaynaya dheh ama ciidanka xuduudada intaba muhiim bay u yihiin inay dowladdu markaas ka shaqayso ayna la dhiirigeliyo ciidankaasna ay la tayeeyo. su-aasha ugu dambaysa aan rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay waa maxay fariintaada ku saabsan ciidanka ilaalada xeebaha iyo shaqada walaalkaaga ciidanka ilaalada xeebaha ee uu walaalkaa ka tirsan yahay maxay tahay fariinta arrimahaas aad ka dirayso? fariinta aan diraya waxa weeyaan in ciidankaas guud ahaan si gaarana walaalkay inay hawsha ay hayaan ay tahay hawl qaran, hawl ay u hayaan naftooda, ay u hayaan ummadooda, ay u hayaan qarankooda inay labalaabaan. waxaan kula dardaarmi lahaa ciidamada guud ahaan ee ka shaqeeya ilaalada xeebaha inay labalaabaan hawsha ay ummadda u hayaan. waa in ay ku fikiraan hawsha ay hayaan inay tahay hawl qaran, ay u hayaan lafahooda, ay u hayaan ummadooda, ay u hayaan qarankooda. saa daraaddeedna marka ay hari habeen u soo jeedaan si ay u ilaalin lahaayeen hantida qaran. waa waraysi xiise leh waxaana rajaynayaa inaad ka heshay. xasuusnow inaad sii wadid diritaanka fariin qoraal gaaban dhanka su'aasha maanta oo ah ma u malaynaysaa in samaynta roondo joogto ah oo lagu sameeyo biyaha daaqsan ay ka hortagi doonto dembiyada ka dhaca xeebaha? fariin qoraal gaaban noogu soo dir nambarka 354 eber.